يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وإن كانت ذنوبك ليست تحصى تكفر بالصلاة على محمد. munaasabaddanina waxay qayb ka ahayd munaasabado kala duwan oo lagu weyneynayo dhalashada nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee oo ku beegan 12 Rabiicul Awwal waxaana munaasabadaasi oo ka qabsoontay hotelka Mudha goobjoog ahaa barisaab ku-xigeenka gobolka Togdheer aana kusimaha gudoomiyaha gobolka Maxamed Cabdilaahi Ibraahim Nafaqo culimo awdiin cuqaal arday iyo sidoo kale dadweyne tiro badan ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay culimadii iyo waxgaradkii goobjoog ahaa munaasabadaasi lagu weyneynayay dhalashada nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waa maalin aad iyo aad u muhiim ah waa maalin aad iyo aad ugu weyn muslimiinta nabigoodii Maxamed sallallahu alayhi wasallam jecel waa maalin qaamku meel kasto ay joogaan ay weyneynayaan nabiyullaahi Maxamed salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waa maalinkii Allah subhanahu wa ta'ala uu ka saaray adduunkan dulmigi iyo mugdigi iyo gaalnimada shirkiga Allah ka saaray weeyaan waa maalin oo Allah subhanahu wa ta'ala inoo soo hadiyay nabigeena Maxamed sallallahu rabbi wa salaamu alayhi in Allah subhanahu wa ta'ala loo mahadnaqo nimco Allah subhanahu wa ta'ala ku galladastay maalin la yaqaano oo muayyana waa ogtiro waxa weeyaan xaflado maalinta kanaacada iyo maalinta duumada iyo maalmaha faraxalka iyo wada laqaana in la soo qaban qaabiyo yaa waa wax la yaab leh marka inaynu maalintii nabigeena calayhi salaatu wasalaam inaynu qaban qaabino oo cadowga ilaahay iyo cadowga diinta iyo cadowga rasuulkuba ay dhintaan ku cayaarayo ciida aan ku qasayo cirka aan u ridayo sidaan qaadi karayn iyo hadba ruux ku cayuuqay haddaan caawa ilaahay iyo nabigeena cuslaa iyo inaan diinta u ciidmo cindigayga ka keenay asiiska ma hadda leh aan carabiyo maan ashadu dhalanayay cudoonow nabigeena cod yaraan ka ilaaho ilaahay baa ummadan uga dhigay markaa iftiin iyo dhankiisa isla waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer ana kusimaha barasaabka gobolka Maxamed Cabdilaahi Ibraahim Nafaqo ilaahay waxa aynu weydiisano ilaahay ina siin jiray isla markaba maanta ba hadii aynu weydiisano ama aynu ducaysano waxa laga yaabaa inay muddo badan ducadeena layna ka aqbalay laakiin waqtiyadii hore dadka caqiidadoodu saliim bay ahayd qofkii aayad quraan maqla aayada quraan waa ku dhaqmi jiray xadiis maqal xadiiska wuu ku dhaqmi jiray wuu weelayn jiray Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi Ariel TV magaalada Burco.